salaamullaahi calaykum dhegeystayaal duhur wanaagsan kusoo dhowaada qodobada wararkeena duhurkooda ugu waaweyn aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya shirka arrimaha doorashooyinka oo maalintii saddexaad ka soconaya magaalada muqdisho culammada soomaaliyeed oo walaac ka muujiyey falkii kufsiga iyo dilkii ahaa ee loo geystay xamdi maxamed faarax faahfaahinno dheeraad oo laga helaya dagaal ka dhacay duleedka magaalada muqdisho wasaaradda caafimaadka oo maalmo kadib ka hadashay kufsigii iyo dilkii xamdi maxamed faarax webiga shabeelle oo mar kale ku fatahay xaafado ka mid ah degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahinno dheeraad oo laga helayo qarax khasaare geystay oo ka dhacay gobolka bokool gudoomiyaha maamulka gaarisa oo maanta la horgeeyey maxkamad kadib markii lagu eedeeyey musuqmaasuq wasiir ka tirsan maamulka somalilan oo shaaciyey in laga helay caabuqa cudurka covid-19 qodobada dibadda wararkeena duhur aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya Trump oo wacad ku maray in uu ka jawaabi doono iskudaygii dilka safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika iyo xabaal wadareed laga helay goob ay maamulaan urur diimeed baraanka ku taagan yahay awow aamus waxaan dhageysanayaa war ka baxaya radio Africa idaacada Africa kula dhageysta ka fur adeer albaabka ha dhageysta warka idaacada adeer kale idaacada la dhageysta intaasi had maqlayseen dhageystayaal waxay ahaayeen qodobadeennii ugu waaweynaa waa 15-ka bisha September ee 2020 ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo faahfaahsan faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida qodobkani uu ku eegayo wariyaheena Mubaarak Cabdalla faahfaahinno ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal mar kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ku dhex maray ciidanka midowga Afrika ee AMISOM iyo dagaalyahano ka tirsan al-shabaab dadka deegaanka ayaa soo warinayay in ay maqlayeen dhawaaqa hub culus oo la isku adeegsaday dagaalkaas oo si gaar ah uga dhacay deegaanka Arbaco oo ka tirsan ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho dagaalka ayaa wax uu yimid kadib markii al-shabaab marka hore ay weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen saldhigga ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Arbaco hase yeeshee markii dambe uu bilowday dagaal muddo kooban socday ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkaas iyo madaafiic jawaab ah oo ay tuureen ciidanka AMISOM welina ma jiro wax war oo ka soo baxay maamulka deegaanka ceelasha biyaha waana markii labaad ee toddobaad gudihiisa dagaal halkaas uu ka dhaco wasiir ka tirsan maamulka Somaliland ayaa waxa laga helay caabuqa cudurka COVID-19 waxaana la sheegayaa in mar kale uu soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 deegaanada maamulka Somaliland wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koor ayaa sheegay in laga helay cudurka COVID-19 wasiirka ayaa sheegay in hadda xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay isla markaana xanuunka cudurka COVID-19 laga xaqiijiyay waxa uu sidoo kale sheegay in deegaanada Somaliland uu ku soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 waxa uu gali doonaa maalmo karantiila maadaama cudurka laga helay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta maamulka Somaliland iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ayaa magaalada Laascaanood iskaga baaray caabuqa cudurka COVID-19 sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ayaa bulshada ugu baaqay in ay iska baaraan xanuunka cudurka COVID-19 isagoo bulshada ka wacyigeliyay halista caabuqa cudurka COVID-19 culimada Soomaaliyeed ayaa si kulul waxa ay uga hadleen kufsigii iyo dilkii magaalada Muqdisho lagu geystay xamdi maxamed faarax oo ahayd ardayad ku nooleed magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cabduqaadir ayaa qodobkan inoo eegaya qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay falalka kufsiga ah oo maalmihii la soo dhaafay ku soo batay qaar ka mid ah gobolada dalka waxaana ay sheegeen in dowladda Soomaaliya laga doonayo baaritaano Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa sheegay in falkaasi naxdinta leh ay ka dambeeyeen gacmo ka baxsan Soomaaliya isla markaana hay'adaha baarista laga codsanayo in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo waxa uu sheegay in dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka ay ka soo horjeedaan falkan isla markaana ay dhacdooyinka lagu kufsanayo carruurta yaryar ay yihiin kuwa ku cusub Soomaaliya يعني لسوسو بيجاني أو سمع دينكو يعني شرفت مدة الصوماليات مركب واحد عادو فوق هرمتي أو يعني معلومها وحيابها كل بقى صوت راي كل ما اللي بيشي جايو
aad u malayso wax un celis halkan hadday laga sheego haddana dhinac kale laga sheegi haddana dhinac kale laga sheegi marka waa runtii aad u foolxun oo dhaqankeena iyo diinteenna ayna qabin oo wax inagu cusub arrintaas iyada ah oo aad iyo aad u foolxun ayaa socda طبعا waddanka hadda uu furan yahay oo yani xuduudihiisa iyo meel kasta qofku yani sayidoo laga yeeli karaayo wax walba ayaa suurtagal ah yani ama xataa yani waxyaabaha ku saabsan filimada la fiirsanayo oo lasoo gelinayo matalan waxyaabahan social media iyo waxyaaba ku saabsan oo wax kastoo akhlaaq xuma oo dhan halkaa laga soo deynayo wax yani faafreed iyo xakamayn iyo kala soocid iyo waxbana ayna jirin marka wax walba ay saas oo kale markay noqdaan waxaas iyo wax kasii xun inay soo baxaan waa wax yani bii'ada markaasi muuqata ay dhali karayso marka wax walba waxay leeyihiin ka hortag shiiqa ayaa tilmaamay in haddii aan tallaabo laga qaadin kuwa ka dambeeya falkaasi inay dhibaato hor leh markaa ka dhalan karana xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay inay markaa daba taagan yihiin kiiska kufsiga iyo dilkii wuxuushnimada ahaa ee muqdisho loogu geystay marxuumad xamdi maxamed faarax islamarkaana ay warbixin ka sugayaan hay-adaha ammaanka waxa uu sheegay in marnaba kiiskan aysan ka hari doonin ilaa cadaalada la marsiiyo dadkii ka dambeeyey falkaasi kuwaas oo qaarkood la sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku hayaan. dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maalmo kadib ka hadashay kufsigii dilkii xamdi maxamed faarax. wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa maalmo kadib maanta ka hadashay kufsigii iyo dilkii marxuumad xamdi maxamed faarax oo jimcihii la soo dhaafay lagu geystay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir kadib markii dabaq laga soo tuuray. qoraalkan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa si kulul looga cambaareeyay falkii foosha xumaa ee lagula kacay xamdi maxamed faarax oo ahayd gabar 19 jir ahaa oo sanadkan dhammaysay waxbarashada. wasaaradda ayaa sheegtay in falkaasi uu ahaa jariimo weyn oo lidii ku ah diinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed isla markaana aan marnaba loo dulqaadan karin waxaana laamaha amniga dowladda Soomaaliya ay ka dalbadeen in cadaaladda la horgeeyo raggay ka dambeeyay arrinkani oo lagu qaado ciqaab u dhiganta gabadfalkii ay geysteen. ugu dambeyntiisii hayaha wasiirka caafimaadka Fawziya Abikar ayaa tacsi u dirtay qoyskii eheladii ummadda Soomaaliyeed ay ka baxday xamdi maxamed faarax waxaana falkani loo qabtay 4 ruux oo lagu shakisan yahay. wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa si adag u cambaaraysay falkaasi iyadoo ugu baaqday in ay loo baahan yahay in laamaha amniga ee dowladda Soomaaliya ay ka hortagaan falkan iyagoo sidoo kale baaritaano lagu xaqiijiyo ay sameeyaan. faahfaahinno kala duwan waxa ay ka soo baxayaan qarax ka dhacay gobolka Boqol kaasi ay ku dhinteen dad shacab ah. Saarakiin Cabdullaahi ayaa qodobkan inoo eegaysa. wararka ka imaanaya magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol ayaa sheegaya in qarax miino oo dhulka lagu aasay ay la kacday dad shacab ah oo mootooyin bajaaj saarnaa. goobjoogayaal ayaa sheegay in 6 qofood ay ku geeriyootay halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen miinadani kuwaas oo isugu jiray dadkii mootada la socday iyo qaar kale oo wadada lugeynayay. qaraxani waxa uu ka dhacay meel Xudur 25 kiiloomitir kaga beegan dhinaca waqooyi halkaas oo ay marto wadada xiriirisa magaalooyinka Ceel Barde, Qurac Joome iyo gobolka Hiiraan. dadka mootada saarna ee geeriyooday ayaa waxaa ku jiray 2 walaalo ah. dadkani ayaa maanta lagu aasay tuulada Banjinaay oo 15 kiiloomitir kaga beegan magaalada Xudur halkaas oo markii hore ay ahayd deegaanka ay ka soo baxeen. maamulka gobolka Boqol iyo kan degmada Xudur ayaana weli ka hadlin dhacdadan uur ku taalada ah. sidoo kale ma jirto cid sheegtay mas'uuliyadda qaraxan oo laga aaminsan yahay inay ka dambeysay al-shabaab. webiga Shabeelle ayaa mar kale waxa uu fatahaad ka sameeyay xaafado kamid ah degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. gudoomiye ku-xigeenka degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo wafdi uu hogaaminayo Cabbaas Xasan Maxamuud ayaa waxa ay booqdeen xaafado kamid ah degmada Jowhar. xaafadahaasi uu fatahaad ka sameeyay webiga Shabeelle. gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu booqday wadada xiriirisa degmada Balcad iyo sidoo kale degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellada Dhexe isagoo maamulka Hirshabeelle iyo waliba dowladda dhexe ee Soomaaliya ka dalbaday in gargaar loo soo gaaro dadkii saameynta uu ku yeelatay webiga Shabeelle ee fatahaadda mar kale uu ka geystay degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. oo jeedin biyaha fatahaadda oo ilaahay ku madarnaadee oo tuuladan hadda dhibaatada ku hayo tuuladu waa dhinaca xataa waa ay ka soo galeen oo
maadaama ay ku dadaaleen ay iska cebseen dhinacay ka soo galeen anigu naftayna ma fadhino wixii uun tabartayna waanu maaragtay la garab gelaynaa waxaan rabnaa in uun laga soo gaaro oo loo qaban karo maaragtay fatahaaddan qoftii wax ka gasho cid allaala cidda wax ka gasho inay wax u qabato dadka masaakiinta hoos ku dhex barakacay oo biyuhu aysan u saameeyeen hadda biyahan waxaa waaye biyihii oo horo haddana kuwa kala biyahan fatahaadda soo degaya hadda laamiga aan taaganahay waa laamigii oo degmada jowhar ka soo baxayay beriga baabuurkii mahadnay ka soo baxay meesha maaha xaanshuuley ilaa iyo magaalada dadku saasay ku soconayaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa webiga Shabeelle waxa uu fatahaad ka sameynayay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo maamulka Hirshabeellana uu wada dadaalo kala duwan oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa fatahaadda uu sameynayo webiga Shabeelle. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Afrika magaalada Muqdisho. iminkana qodobada dibadda. xabaal wadareed ayaa laga helay deegaano hoos taga ama ay gacanta ku hayeen kooxdiimeed. booliska Banama ayaa sheegay in ay baarayaan xabaal wadareed ay rumaysan yihiin inay ku jiraan haraadiga dad ay dileen kooxdiimeed. baarayaasha ayaa waxaa isha ku hayaan soo faagista qalfoofda ku haray deegaan fog oo ku yaala gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi halkaasoo ay ku nool yihiin dad waddankaasi loogu tegay. bishii Janaayo ayaa goob halkaasi ku dhow waxaa laga helay xabaal wadareed ay ku jiraan meydadka 7 qof dhibanayaal oo la soo xiriiray kooxdiimeedka la rumaysan yahay in ay qaadaysay weerarkii ka dhanka ahaa ay dadka u arkaan in dhibaato ay yihiin. dacwad oogaha ayaa sheegay in ay baarayaan in baarayaasha ay qasab ku noqonayso in muddo 10 sano ay buuraha fuulaan si ay u qaadaan xabaal wadareedka taasi oo laga helay dhinaca waqooyi ee gobolka bartaasi oo webiga u dhow. deegaanka ayaa waxa uu 350 kilomitir galbeed ka xiga magaalada caasimadda ee Banama City. dhammaan haraadiga ayaa waxaa loo diray qalfoofka ama qolalka meydka lagu kaydiyo ee gobolka Kinyo halkaasi oo lagu baarayo waxaana sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha oo ku qorneed luqadda Isbaanishka. goor sii horeysay toddobaadkan ayaa boolisku waxa ay soo xireen hogaamiye la sheegay in uu maamulo kooxdiimeedka New Light of God. kooxdaasi oo lala xiriirinayo xabaal wadareedkii laga helay bishii Janaayo. xabaal wadareedkan oo meydadkii laga helay ay ku jiraan haweeney xaamilo ahayd 5 caruur iyo cunug markaasi soo hanan qaaday ayaa waxaa la helay kadib markii 3 qofood oo tuulooyinka aagaasi ku xiran degan kuwaasoo goobtaasi ka soo baxsaday. isbitaalka la dhigay dacwad oogayaasha ayaa waqtiga sidaas sheegay. guud ahaan warkii duhur oo aad ka dhageysanayseen shabakadda warbaahinta Afrika magaalada Muqdisho saaxiibayaal waa nageynta idina waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warkayaga.